Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkaan naga daawanaysaan waa Maanka Media Channel. Maanta waxaan soo hor fadhiisanay oon rabnaa inaan horaan waxa u aragteen Qur'aan challenge oo lagu xiraayo YouTubers. Maanta waxaan rabnaa xadiis inaan ku xirno YouTubers ka Soomaaliyeed oo inay ka soo jawaabaan ay ka soo falceliyaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mar labaad ku soo dhawaada idin leeyahay YouTube channel kan. maanta maadaama lagu jiro bil Ramadaan waxaan doonayaa laba xadiis waxaan ka gaarno inaan idin akhrino insha Allah. labada xadiis aan isleeyahay bal maanta oo munaasab u tahay labada xadiis waxay ka hadlayaan suxuurta iyo iftaarka insha Allah. suxuurta da ku bilowno baab ma jaa fi suxuur عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. يعني رسولك حوليه هاي سحورت على السحور تسحروا سحورت فإن في السحور محايا لي على سحورنا بركة كجرتو مدى ذاك سحور تحافي عن حل هور حل الدم اللي دمبيسيو إفطار كان لسدي تعجيل إن شاء الله. حديث قال دان قدر عن سالم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هاي لا يزال الناس كمزول يندتك بخير خير يكسجيهين ما عجلوه الإفطار مركز تعيد الدجيان إفطارك مركز لبعض المسألة هاد حواي سحور ترى إنا دبدقنا إن شاء الله إفطار كان للدجي إن شاء الله أنا قلت أصوبها ولا ليك لا سؤال بينا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد مر لبعض كسو دوادا جنال كان ما أنت وحان دونينا إن إذن لو داقنو أحاديث ير كواسا اسكوكو برارجونينا صومكا mar koowaad iyo mar labaad waxaan leeyahay Ramadaan mubaarak. marka xadiidkayga hadaan idin la wadaago عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف ما شاء الله. يقول الله الصوم إلا الصوم لي وأنا أجزي به. wuxuu leeyahay Abi Hurayra waxa laga warinayay Ilaaha ka raali ahaaday inuu rasuulka ka wariyay naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee amal walba oo ibn aadamka uu sameeyo in la laabayo 10 jeer ilaa 700 oo laab Ilaahina wuxuu leeyahay illa soomku ka reebay illa iyo soomka ma ahana soonkana wuxuu dhahay as-sawmu li soonka aniga iskale waa ana ajizi bi aniga ana ka abaal marinaya aduumihi wuxuu yad'u shahwatahu wa ta'amuhu min ajli wuxuu leeyahay Ilaah sababtoo waxaan uga abaal marinaya waxay tahay wuxuu u daayay shahwadiisi iyo cuntadii uu cuni lahaaba min ajli dartay u daayay lisaa'imi farxatan ninka soomanna waxa u sugnaatay laba farxadood farxatun 'inda fitri farxada koowaad waxay tahay markuu afurayo وفرحة فرحة لبادنا وحواي عند لقاء ربه مركو ربي سلا كل مايو وهل دون أيضا فرحة كواد وأهمركو أفرايو تن لبادنا وحنداني وحيل يا مركو ربي سلا كل مايو عز وجل. والخلوف فم الصائم أطيب من شجر من طيب المسك وحين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحيل يا نبي neefta ka soo baxayso ama shirta yaro ka soo baxayo qofka sooman afkiisana waxay ka caraf badan tahay geedka loo yaqaan miskiga. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waana magaciisa oo in la wadaagro xadiisi yar oo ku saabsan soonka maadaama bil Ramadaan oo barakaysan lagu jiro insha Allah ما أنا أذكر أكو حرنتين سكدي إيش جين جانال كان أو دين كشغانة إن شاء الله مركا نقول حرنا حديثها هي قرآنها هي برنامج الدين السجودين أكو حرنا أو مركز كفاية السنغض إن شاء الله جانال كوح أو إنه بهي هاي وسكرب حكلته اللي بهي مرأينا كفاية الدين مواضيع الديني أو الوصول السيدة مركز تا إن شاء الله هذا وحنا قال حديثه أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه قفكي سو صومن وهدنا meelaha dad iska xanto wax uu iska sheego qofkaas soonkiisa cuntadii waxaan uu ka tagay waxba ii sheegeen u taraysa ma laha qofkaas marka waxa la rabaa xadiiskan waxaan ka faa'iideysanaynaa inuu ii sheegeen qofka markuu sooman yahay xanta waxyaalaha xumaanta iyo wax dhan inuu iska daayo uu quraan akhriska badiyo iyo ii sheeg sunnada iyo tasbiixda inuu badiyo uu iska daayo waxaan malaacani uu sheegay uu markasta uu ii sheegeen waxaan u faa'iideynin oo mid kale bisha Ramadaan inta lagu jiro acmaasha la qabto hada wax wanaag qawtid waa lagu laalaabi marka waxa markasta 100% in aan ii sheegeen wanaag badino ii sheegeen quraan akhriska aan badino isku dayno ugu yaraan 10 jeer wax ka badan aan quraanka aan dhameeyno insha Allah aan ka faa'iideysano bisha barakeysan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال داودة إفيرسة إيجا سبسكرايب باش جودن نعيل كده ومانكا ميديا جانال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.